maxaad kala socotaa heshiiska ay gaareen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo cabdullaahi maxamed nuur haddii shalay macalin mahdi muuqaalka uu nala wadaagay hotelka ileedna hub laga soo saaray oo magaalada lagu arbushayay dhowr maalin kadib ubaxyadan ayaa la dhigay dib ayaan loo furay marunba in ciidamadii iyo hubkii uu watay cabdullaahi maxamed nuur uu lahaa inuu ku wareejinayo dowladda federaalka Soomaaliya odayaal iyo saraakiil tagay cadowul halka ay fariisimaha ku leeyihiin ciidanka ayaan kula wadaagayaa sawirkan aad aragtaan saddex sarkaal oo midi dawladdu uu matalayo midina cabdullaahi maxamed nuur uu matalayo midna uu dhaxdhaxaadii yahay ayaan kula wadaagi doonaa kulanka ay yeesheen iyo wax la isku fahmay soo dhawo muuqaalka la agsar sheergalay aragtida qaybta hoose ee commentiga maalmii la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho aad isugu hayay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirkii hore ee amniga cabdullaahi maxamed nuur ahna milkiilaha hotelka ileed ee magaalada Muqdisho warar kala duwan oo aynu helayno waxay sheegayaan in la gaaray heshiis hordhaca iyo isfahan guud maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la kulmay laba nin oo muhiim u ahaa siyaasaddiisa isla markaana ay isku reerihiin cabdullaahi maxamed nuur iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed sawirkan aad aragtaan ragga ku jira waxay kala matalayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo cabdullaahi maxamed nuur iyo rag dhaxaadiyaal ah oo dowladda xil ka haya midi waa General Sani Cabdulla Gaab taliyaha guutada saddexaad qaybta 12 Abriil dowladda federaalka Soomaaliya dhankeeda waxa ka socdo ninka lagu magacaabo Cornel Hussein Salaad Ibrahim Muallif waa taliyaha guutada 17aad ee ciidanka Gorgor ee dowladda federaalka Soomaaliya ninka kale ee saddexaadna waxa lagu magacaabaa Cornel Cali Cadde Maxamed Nuur waxa uu la dhashay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo walaalkiisa waana taliyaha guud ee ciidanka Cabdullaahi Maxamed Nuur ee ku sugan cadowul oo hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe saddexdan sarkaal waa ay kulmeen waxaana ay ku kulmeen cadowul Cornel Muallif iyo Sani Cabdulla Gaab iyo sidoo kale mas'uuliyiin odayaal ah ayaa ka baxay degmada Cadale qaarkood Muqdisho ay ka baxeen laakiin Cadale ayaa laga qaaday waxaana la geeyay cadowul halkaas oo ay kula kulmeen saraakiishan kadibna waxa la iska xog wareystay sida xaaladdu ay tahay Cornel Muallif waxa uu la wadaagay saraakiishan inaysan jirin cid u soo socota inaysan jirin qof dagaal ku soo ah qof colaad u qabta iyo qof la soo amray inay weeraraan ciidanka ku sugan cadowul wayna aqbaleen saraakiisha oo hogaaminayo Cornel Cali Cadde oo ah walaalka la dhashay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ciidanka Cabdullaahi gacanta ku haya kuna sugan halka la yiraahdo cadowul laba nin oo ganacsato ah oo lagu kala magacaabo Axmed Qaadi iyo sidoo kale Ibrahim Ka ayaa garwadeen ka ahaa isfahan hordhaca oo ay gaareen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo beesha uu ka soo jeeday cabdullaahi maxamed nuur laba mid ayuu madaxweynaha Soomaaliya uu soo bandhigay midda koobaad waxay ahayd in dib loo furo hotelka ileed ee magaalada Muqdisho waana ay dhaqan gashay dib ayuuna u shaqeynayaa hotelka ileed iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya maalmo ka hor ay noo sheegtay in ileed laga soo saaray hub lagu qalqalgelinayo magaalada Muqdisho waa isla jilinkii oo maalmo kadib la soo gabagabeeyay dib ayana